السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس walaalkay waa ku salaamay walaalow hadda ayaan dadkii la socodsiiyey waxaana doonayaa inaad insha allah biidnillahi alkariim aad dadkaada u sheegtid inaan noolahay inaan Omaha Nebraska inaan tagay inaan joogo waa ikanaa alxamdulilah alshukru lilah walaalow ilaahay baa mahad iskale daa'uud waa la helay waa kanaa yacni hadduu ilaahay raa dadka ahalka iyo qaraabada ah iyo islaamnimada iyo soomaalida iyo muslimiinta iyo adiga iga walwalaya iyo safiyo kulligiin waxaan idin sheegayaa in la helay inaan joogo walaalow sidaad iiga walwashay ilaahay ajriya xasanaha kaa siiyo caawa waxaan ku hoyanayaa familkayga ayaan la hoyanayaa dadkii aan iskala soo dhoofnay ilaa Maalto ilaa Liibiya ilaa Suudaan dadkaan isla soconay ilaa diyaaradda American beri hore kala dhunay caawa gurigaas ayaan marti ku ahay insha allah waana kasoo hadli doonaya hadduu ilaahay yiraa walaalow dadka u sheeg dadka iga walwalaya waa noolyahay daa'uud waxba kama bi'in jidka ayuu sii maray baabuurka ayaa ka halaabay xoogoo haddii naftu gaarto ilaahay waa nabadgeeyey welina safar ayuu kusii jiraa ducadoodana waa arka wanaagsan asxaantu jisaakallah walaalow codkaygan waad la sheer garayn kartaa dadka Soomaaliyeed waan u mahad celinayaa siday u dhan yihiin waad u fasaxan tahay inaad codkayga aad publish garayso inaad videogay inaad maxaa la yiraahdaa voice-kaygaas aad u sheegtid dadka walaalaha ah Soomaaliyeed muslimiinta yacni naxariista badan waa daalanahay insha allah walaalow aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ilaahay ajri xasanaa siiyo owlaada allah u xifdiyo nafsadooda allah u xifdiyo ilaahay caafimaad ha siiyo adiga iyo kulligiinba walaal aniga muddo dheer xoogo yacni aan adigu dhibaatooyin aan sidaa usii badnayn aan sii dhex maray ilaahay waa isama geeyey welina safar ayaan kusii jiraa insha allah biidnillahi alkariim markii aan tago magaalada kale oo aan u socdana waa idinla soo socodsii doonaa hadduu ilaahay yaraqayso asxaabtu jisaakallah waan dareemayaa walaalow ma dhiman dhibaato ima gaarin alxamdulilah waxaan ogaaday dad iga walwalaya asxaan leh naxariis leh oo soomaalinimada yacni danaynaya islaamnimada muslimnimada danaynaya oo qofkii dhiban yacni af iyo adin iyo anfacaba intaba la garab taagan oo wallaahi duco iyo maxaa la yiraahdaa wax walba ku caawinaya inuu ilaahay iga dhaliyay ayaan yacni Soomaaliyey asxantu jisaakallah ilaahay baan idin bari idinkana ilaahay waxaan idinkaga baryaa intii safar baan ku jiraa ducadeyda in la aqbalaa laga yaabaa madluum ayaanahay in ducadan idin duceeyo la iga aqbalo ayaa laga yaabaa allahumma hdi shabaab almuslimiin alxamdulillahi rabbi alcaalamiin صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلى أهيو مسلمين تربيه واللهم إله حفد كي عداوها كدا يعني كما قنقله إلى أهيو جوع iyo dhibaatada walaalow axsantu jisaakallah walaw wadaagi karta codkaygan dadka Soomaaliyeed ilaahayna waa isama geeyey welina waa sii socdaa hala ii soo duceeyo beledka aan tagi doono inuu beledul aamin ilaahay iga dhigo oo kii dhibaatada aan soo maray la iiga mayro inuu ilaahay iga dhigo waxaa kala ogaataan inaan idin mahad celinayo oo isbedelka iso yacni aan dareemayo aan idin soo bandhigo aan idinla wadaago bulshada walaalahayga ah maxaa la yiraahdaa maalinkii sabtigii lasoo dhaafay ilaa sabtigan laba qofood ee kala duwan ayaan ahay maadaama qays oo idinla socodsiiyey arrinkayga oo yiri daa'uud ha lala socdo waa kanaa dhibaatadan tarxiilkii iyo meesha uu ka bilowday sabab wixii uu ahaa waa xarigga maxkamadan laygu xiray marka maalintaa wallaahi ka bacdi waxaan helay dadka followerka qays ah maasha allah ayaan waxaan ka helay caawinaad weyn oo ilaahay ajri xasana ha siiyo youtube-kayga aad igula taliyey inaan furto maxaa la yiraahdaa khiyaaray aad inta
intaad isgaarsiisaan dadkiinnii maalintaa daawaday dadka kale la u sheer gareeyey la wadaagay oo xanuun oo yacni dunida kala gaarsiiyey walaalaha wanaagga yacni saaxiibka u ah oo isgaarsiiyey maalintaa markaan idiin sheego wallaahi youtube-kayga 180 qofood bisaa ku jirtay maalintii aad aqyaaray aad qays ka dhagaysateen taariikhdayda waxay noqotay maalin sharaf leh wanaagsan inaad maxaa la yidhaahdaa aad ka qiirooteen oo yacni taariikhdayda kabacdi aad gaarsiideen walaalihiinna kale dunida ku nool yacni meeshaa caawinaad weyn aan ka helay caawinaadaas oo kala ah yacni maskaxiyan kuwa iga caawina kuwa iga caawina maxaa la yidhaahdaa dhaqaale kuwa iga caawina kuwa ii ogolaada in yacni looyar la iga caawino maxaa la yidhaahdaa in aan isbeddel halkaa ka helay aad iyo aad u wanaagsan oo aan ogaaday dad sharaf leh Soomaaliyeed ee walaalo ah ee maanta damiir leh kuna dambayso maxaa la yidhaahdaa Soomaalinimada iyo damiirku in ay jiraan marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa inaan dadkii u mahad celiyaa waa inaan idiin wada mahad celiyaa waa inaan yacni xeerka aad gaarsiideen aan maxaa la yidhahdaa idinka shukr iyo mahadnaqa axsantu jazaakallah وعاد أيضا mahadsantihiin soo dhawaada xoogaa waa jiranahay maanta alxamdulillaah waa fiicanahay aad ayaan u faraxsanahay waxaan waa daa'uud xaashi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayaan idin salaamayaa halkan waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo oon ku soo koobo meesha aan maanta joogo waa Nebraska gobol la yiraahdo Nebraska or Nebraska, however you want to say. So waa walaalkiin daa'uud oo safar dheer ka soo baxay waxaan Google waxaan ka qadeeyay maqaayadda buildingka waa maqaayad Soomaaliyeed ayaan imid waxaan ka cunay qado marka aad iyo aad waan ka qadeeyay dad Soomaaliyeed aan kula kulmay ma sha Allah wata magaaladii aan kala kulmo safar ayaan ku jiray meeshaan ayaan yacni habeen iyo maalin ayaan soo socday ayaan halkan maanta ayaan halkan aan ku hakaday shalay waxaan ka soo qadeeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin meel walbo tagto America tuulo walba oo tagto baadiyaheeda waxaad kula kulmaysaa Soomaali wax gadaysa war Soomaalida ma sha Allah waa dad xadaariyiin waa dad waxa way ilbaxa waa dad xadaariyiin iyo ilbaxa ma sha Allah meeshaad Google garayso xataa Google waa ku jiraan Google kan weydiiyay Somali store meelaan ka qadayn karo maqaayad Somali restaurant Somali maqaayad Somali halal maxaa la yiraahdaa يعني halkeen kala kulmi kara magaalada